السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها بدن كلنتي وناسن كسر دوادا برنامج كان موفي رياكشن أو سمين دونا في العلم كو أدنا فيلم كي أتاج أو جون أبراهام هجامي كي هاي sidoo kaleetana af Soomaal laga soo dhigo oo shirkadda caanka Fanbroad soo fasirtay kadibna aan daawaday aniga dabcan waxaan ka daawaday Muqdisho Cable TV oo aan ka tirsanay teamkooda magaalada Muqdishona qofkii jooga adeegaas uu heli karo oo guryaha lagu daawado haddaba Attack waxa hogaamiyay ka John Abraham hogaamiyay ka waana filimkii aan ka sheekeyno 1 Abriil soo baxay sida caadiga anaga dabcan teamkan waxaan ka warqabnaa filimka markuu soo baxo waxaan isla wadaagnaa sheekadiisa tiyaatarka marka la saaray ganacsigiisa ilaa meesha uu ku dambeeyo ugu dambeyntii OTT-ga la soo geliyo kadibna isla daawana man xalaas isoo marnay dabcan tan iyo 1 Abriil filimkan waxaan ognahay inuu noqdo filim guul dareysto oo burburo waxaan ugu wacnaay toddobaadkii la saaray toddobaadkii ka horreeyay waxaa dabcan tiyaatarada qabsada filimka weyn ee lagu magacaabo Triple R sidoo kale tan waxaa ka sii dambeeyay KGF Chapter 2 marka John Abraham filimkiisa waqti qaldana la saaray sidaas ayuu ku burburay haddaba filimka Attack daawashiisa u soo laabtay waxaan ognahay Attack iyo Hero Banti asla soo bixin horta labada filim waa kaafi kala dheer Hero Banti 2 horaan kaga hadalnay laba xidigan sina meel noo dhigay Attack markaan si serious kaga hadlo oo daacadnimo ay ku jirto filim oo excellent ah oo kaali iska araga ma aan horta laakiin wuxuu ka wanaagsan Hero Banti 2 aniga waxa say filimkan saddex xidigan siiyay mid waxay tahay koow horta technology la adeegsaday excellent waa level of technology markii robotkii waxyaabaha la sameeyo oo technology wise aalada VFX ka la adeegsanayo quality Hollywood ka agdhow taas waxaan ku siiyay hal xidigan ku siiyay performance wise oo John Abraham uu sameeyay waa another excellent performance waa ciidan xidigan ku siiyay oo John action ka lagu ma gaaro dhinaca kale markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan filimka Attack waxyaabaha dabcan xidigta kale aan ku siinaan waxay tahay filimka timekiisana badnaan haddii waqti ugu dheeraan lahaa 2 saac bar gaari lahay halka xidig kale waa ka goosan lahay oo laba xidig iyo baran siin lahaa fa ka goosan lahaa marka saddexda xidig waxaan u sii waxay tahay filimka concise ah oo waqti badan aan ka qaadinin 2 saac wax yar soconayo performance uu sameeyay ninka lagu magacaabo John Abraham iyo dhinaca kale markii la fiiriyo technology-ga haddaan u soo laabto marka filimka waxyaabaha aan ku liidaa idin sheegaya mid koowaad waxay tahay dialogue badan ma la horta hadallo badan ma la filimka markuu qadiyada fariin wadani uu yahay ama askar uu ku saabsan ama mission uu yahay there should be dialogue waliba solid dialogue waa inuu jira hadallo ku soo jiidan karo Attack ma lahan taasi waa minus then second one wuxuu filimkan ku liitaa waxay tahay emotion-kan uu ku yaryahay oo emotion badan oo xoogaa emotion-ka laba loo kala qaaday emotion related la ah qoyska ama jacayl la xiriiro ama emotion related la dabcan ciidamada iyo wadaniyada la xiriiro labadaba xoogaa wuu ku liitaa labada factor oo filimka isla xoogaa wuu ku liitaa way tahay tan kale tan markii la fiiriyo saaxiibada qiimo badan filimka Attack isku xirkiisa sequence-giisana qaab waxa waa simple oo la fahmi karo ninkan uu baxaya mission uu aadaya mission ku soo guuleysana gabar ay isjecel yihiin qaraxa meesha ka dhacayo asiga dhabarku beelaya next waxaan ognahay filimkan ninkan in loo isticmaalo robot laga dhigaa la programinayo mission-ku u socdo qaabku filimku dhamaanayo xoogaa waxa moodaa in la fahmi kara simplicity ku badan oo wax hal mar oo twist and time ka yaabinay malaha marka waa saddex factor oo aan ku liido marka haddii isku bardhigno saddex meelood ku fiican yahay iyo saddex meelood ku liito waxa at the end isugu kana filimka inaan siiyo saddex xidig waa taxliilka aniga aan sameeyo oo aan taag daawaday adigana saaxiibka nagu xiran oo qiimaha badan oo rag iyo dumar nagu xiran oo hadaa daawata filimka commentiga nagu reeb maxaa ku qiimeyn laak saddexdaas meelan ka fiir saddexdu ku fiican yahay iyo saddexdu ku liitaan soo qaatay saddex xidigna filimkan waa siiyay haddii la dhaho filimkan follow u qalmane aniga ma dhihilaan follow u qalmo wuxuu u qalmo على الأقل إنه نقضي فيلم جولست أو average وحوجا لعبتي سعي لكن Attack هيد ما نقول كريم مركي يصير له في الشو سيدا صندوق عن كيوجد بقى Attack رياكشن كجبه هنادين أصحاب الدعوة صندوق عن فكرة إن لو ذاك طبعا أنا وحبان قيمة يا وحبان تحلل الشو إذن لو ذاك إذن كان طبعا وحبانه إن واحد contrasting دعوة لهذين سيدا سكوا مرة عينه سيدا سنقول دورتي وقول رعيو وحيابة interaction وإنه ماشي كان عن مركب موفي رياكشن سوقاتها إذن كان فكرة إنه بيري أنت سنة كيوجد بقى جون فيلم كيسي Attack بل أنا سوقات ضد هو إسكيب بدن maanta kale waxa soo baxay filimka lagu magacaabo Dushman oo kaajal ku canbaxday oo indhoolka matalayso iyo soo kale mashruuca lagu magacaabo Sham Garsham oo inta badan aad iyo aad loo daawaday waxay labadan projectiba ka sameeyeen markii hore labadaba follow noqdeen oo waxay soo baxeen sanadkii 1998 soo baxeen follow ha noqdo ama xumee laakiin Sham Garsham follow baadaan Soomaalina lagama yaabo xilligii aniga aan shaleemada daawan jiray wuxuu kamid ah filmadan aad iyo aad ku jecelahay Sham Garsham hadii waqtigii dabcan sagaashamaadkii dhamaadkeedii ilaa iyo horaantii qarniga daawan jirtay shaleemooyinka Sham Garsham follow cid ka yeelas ma wuxuu kamid ah filimada lagu soo celiyo Dushman markii la fiiriyo asigana kaajal ay wado sandeedida indhoolka dabcan kaajal ma ahane oo laba kaajal ay ku matalaysan
filimkaas caadi ma aha ninka Ashtat Rana oo dabcan loo yaqaano Cabdul loo yaqaan laadarnimada iyo qamrijinimada uu ku matalay sandidu garabka uu siinayo kaajal labada door ee qaadatay hay kalaas ilay ani hadii sakari ahaan la dhaho labada film flop u qalmaan ma dhihi lahayn laakiin hindi agtooda dushman flop noqday Sham Garshamna flop noqday laakiin miiska noo saaran yihiin adiga kee dooran lahayd daawadaha qiimaha badan oo daawanaysid hadii lagu dhaho Janis haysataa dushman iyo Sham Garsham mid daawo keema daawan lahayd aniga markaan iska bilaabo laba isku kala qaada horta aniga xilligeyga markii la joogo 90s markaan joognay dhamaadkii sagaashamaadkii ilaa iyo dabcan horaantii qarniga markii ilaa 2005 2004 aniga waxaan dooran lahaa daawasho markii la dhaho Sham Garsham aan dooran lahaa sababtoo waa filimkii waqti badan aan ku soo qaatay shaleemada aan ka daawan jiray aad iyo aad u jeclaa oo dabcan markii la fiiriyo ku raaxaysteen Arbaas Khan iyo nin kale la matala dabcan Danger Dulsin laakiin markii aan noqoto hadda markii la dhaho waqtigan la joogo daawo dushman iyo Sham Garsham waxaan dooranaa dushman waxaan ku dooranaa xitaa performance adag oo ay ka jal sameysay iyo laadarnimada jiliinka uu sameeyaan caadi ahaan Ashtas Rana labadaas factor aan ku doortay marka aniga iskala qaaday waaskii hore aflaan daawan jiray markaan iska dhigo waxaan dooranaa Sham Garsham oo ciyaar shaleemada ahay laakiin hadda markii la dhaho keeba wanaagsan mid daawo waxaan dooranaa filimka lagu magacaabo dabcan dushman aan dooranaa idinkan aragtidiina ka dhiibta waa laba film noocaan oo maanta kala soo baxeen laakiin labadaba guul dareysteen oo waxyaabo dabcan ku xiiso badan waa soo qaadan qof mid walba wuxuu lahaa era ama zaman uu lahay oo lagu raaxaysto haddana zamanka la joogo iyo mar walba way kala duwanaan kartaa iyo waqtiga laga soo gud marka taas ayaa muhiim qofka inuu isku cabiri karo waqtigii shal la joogay iyo waqtigii maanta la joogo dabcan muhiim ani marka labadaas markaan compare gareeyay way kala fiican yihiin marka waqtigan la joogo dushman ila fiican laakiin waqtigii shal markii la aado waxa ila wanaagsan filimkii Sham Garsham oo daawan jiray Sham Garsham wuxuu noqday flop sidaan ka dhawaajiyay wuxuuna soo baxay 29kii May 1998 ganacsigiisa dhanba filimkan cimri ahaantiisa wuxuu soo xaray markii aan dabcan soo bandhigna sida hadda u diiwaan gashan oo indie net garooskiisa waxay tahay lacag aad u liidata filimkan maalinku wadna wuxuu keenay 23 lag cimri ahaantiisana wuxuu keenay 1.87 karoor kaliya uu keenay 2 karoor iyo barn waa lagu qarash gareeyay sidaas oo flop ku noqday dushman markii aan firino oo kaajal wada cimri ahaantiisa wuxuu keenay 5.62 karoor budgetkiisana wuxuu ahaa 4 karoor sababtu flop noqday xitaa qoliya cajarada qaybeen lacagta ku iibsadeen ayaa dabcan yaraatay markii la fiiriyo budgetkiisa uu soo celiyay marka sidaas ay kula duwan yihiin labada film midna tiyaatarka markii la ganacsi ahaan dushman badan laakiin Soomaali ahaan markii la dhaho saameyn xilligaas Sham Garsham saameyn badnaa oo Arbaas Khan Danger Dulsin bandhigoodii aad iyo aad ka loo jeclaa ugu dambeyntii waxaan soo qaadanaa filimka lagu magacaabo Brit Firaj Akshay Kumar oo gaamiyay tiyaatarada la saarayo jimcadan ayaa saameyntiisa wato waxaana bilaaway isla markiiba advance booking waxa la dhaho tigidhka la iibsanaa waxa kalsooni badan lagu qabaa tigidhka faraha badan la iibsan doono oo uu la mid noqon doono bulbulaya sidoo kale jimcadan bilaabasho uu la imaan doono Kumar wuxuu leeyahay filimkan juhdi badan aan geliyo qof kasta tiyaatarka ka daawado sidoo kale tan waa mid kamid ah filimada ugu waaweyn ee toddobaadka ugu horeeya June Bollywood ka la imaan doona Akshay Kumar mashruucan hogaamiyay waana filim uu in badan ku xarakeyn doono oo ku matalay hogaamiye kaas oo dabcan ka hadla Brit Firajkii xilliga hore halgama ahayo Hindu ahay sandeedii soo suudna garab siinaan shirkadda caanka Shad Films waxay bilaabeen xayeysiin u sameynta filimkan aan caadi ahayn magaalooyin kala duwan la tagaayo TV-da laga xayeysiinayo tigidhka hadda waa la furay ma idin la tahay Brit Firaj inuu noqon doono film Akshay Kumar ku soo laabanay kadib markii Bajan Banday uu flop ka noqday marka guud ahaan barnaamijkan intaas oo nooga egyahay movie reaction oo ku soo qaadanay Attack oo diirada ku saarnay iyo maanta kale labada film caanka isu bardhignay dabcan dushman iyo Sham Garsham iyo soo kale Brit Firaj oo la bilaabay tigidhkiisa iibsashada 24 saac kastana filimka Akshay Kumar iyo tigidhkiisa waxyaabo u soo kordhanay waa idin la wadaagi doonaa waa mahadsantihiin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh